asalaamu calaykum wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada casharkii toddobaad ee barashada video editingka. casharkeennan waxaa ku qaadan doonaa waxa la yidhaahdo keyframe aad ayuu muhiim u yahay, siyaabo kala duwan ayaana looga faa'iideysan karaa. bal aan isla aragno waxa uu yahay keyframe. okay, muuqaalkan soo qaad, halkan keen timelineka. okay, key project settings iska dheh, background musigana soo qaad, qaybtan hoose keen asigana. waa hagaag. muuqaalkan sida caadiga ah waa kanaha. marka tusaale ahaan oo kale waxaa dhacdo qofaa muuqaal ama vlog soo duubayaa, juhdi iyo dadaal dheer uu gelinayaa muuqaalkii, wuxuu soo gelinayaa youtube-kiisa ama facebookkiisa ama meel kaloo soo dhigayaa. kadibna dadaa waxay sameynayaan si fudud ayay intay muuqaalkaas u qaataan, iyagoo wax dadaal ah iyo rafaad aana ka marinin bay waxay saaranayaan loogadooday saaranayaan, magarati. marka qofkiina waxaa waaye xuquuqdii muuqaalkii uu lahaa iyo wixii o dhan ma la xusaayo. marka keyframeka wuxuu kaa saacidayaa in muuqaalkaada xuquuqdiisa aada ilaashatid. tusaale ahaan oo kale hadda muuqaalkan waxaan sameyneynaa loogo ayaan kusoo daraynaa. okay, fiir marka tusaale ahaan oo kale loogadan soo qaad, halkan soo dhig, kadibna waxaad sameyneysaa sidaan u dheereey ilaa dhammaadka muuqaalka gee. okay, loogadan waxaa sameynayaa inay halkaas inta kasoo baxdo ee halkan ay imaato, kadib kor ay u socoto, kadib geeskan ay imaato, qaab diagonal ah, qaab straight ah, yacni qaabkaan rabo inaan u socodsiiyo ayaan rabaa. okay, marka waxaan sameynayaa loogada meesha ay ka bilaabanayso halkan qeybtan hore wax looga malahan, soo ma jeedid. okay, halkan ayay loogada ka bilaabanaysaa, soo mahan, halkaasay ka bilaabanaysaa. okay, meeshaasaa imaanaya. marka loogada waxaan sameynaya marka horta kan qeybta hoose si uunan iga dhaqdhaqaaqin log ayaan leeyahay, waa xirinayaa. okay, kadibna waxaan sameynayaa loogadan ayaan double click ku dhahayaa. okay, double click markii aan ku dhaho loogada sidaanay u weyn tahay waan yareynayaa. okay, sidaas ayaan u yareynayaa. okay, hadaa rabtidna iyadoo weyn waa isticmaali kartaa, laakiin iyadoo yar in la isticmaalo ayaa qurux badan. waa taasaa loogada halkaas ayaan marka geynaya geeska. okay, marka loogadan sidan haddii hadda aan ku isticmaalo meesha ay muuqaalkan uga aado way qarinaysaa, ma garat. marka waxaa la rabaa loogada in laga dhex arki karo muuqaalka. sidoo kale loogada dadka muuqaalka daawanayana inay yani saa-id u interrupt garayso ama ay muuqaalkii ka qastana lama rabo. okay, waxaan sameynayaa marka waxaan yareynayaa opacitygeeda ayaan yareynayaa. okay, sidaas halkaana soo qabanayaa, sidaas ayaan ujiidayaa. okay, sidaas ayaan ujiidayaa. halkan batankan reset waaye, waan ka laabanayaa, fuuliya soo naqanaysa loogada, waa ujeedaa. okay, halkan haddaan rabo lamber mucayin ah waa isticmaali karaa. tusaale ahaan oo kale waxaan leeyahay 20% oo kale iga dhigaan leeyahay, sidaasay naqanaysaa, ma ujeedaa. haddaa rabtidna halkan ayaad wadeysaa macnaha. okay, midig iyo bidix dhinaca aad rabtid ayaa wadeysaa, cabirka aad rabtid markay kuu tagto ayaa deyneysaa. okay, hadda tusaale ahaan oo kale anaga waxaan isticmaalaynaa 30% oo kale aan ku tijaabinaynaa, isticmaalaynaa. okay, waa hagaag. marka maxaa sameynay marka waxaan sameynay loogadii opacitygeeda ayaan yareynay, oo hadda tusaale ahaan kale dada madaxa lagu aadiyo kale somehow waa la arkaa, soo uma jeedid. okay, waa hagaag, halkaasay joogtaa. marka hadda marka waxaan sameynayaa keyframeka ayaan bilaabayaa. hal frame ayaa waxaan u soconayaa dhinaca midigta, batankaas ayaan taabanayaa. okay, hal frame aa socda, soo mahan. waa hagaag. halkan marka aad ayaan taabanayaa. okay, aad ayaan leeyahay, calaamada kusoo darsoonta, soo uma jeedid. keyframeka meesha uu ka bilaabanaya waay. okay, playheadkana soo qaadaya, waxaan geynayaa meesha uu keyframe ku dhamaanayo, halkaanoo tusaale ahaan aan rabaa inuu ku dhamaado. okay, kadibna waxaan leeyahay loogadii waa tanaa, soo mahan, sidaana usoo jiidaa marka. okay, loogadii sidaas ayaan u jiidayaa, sidaas ayaan uwadayaa, sidaas ayaan uwadaya ilaa iyo geeskaas saas ku geynayaa. okay, waa hagaag. waa kaasaa marka keyframeki waa la sameeyey, soo ma jeedid. okay, aan soo bilaabo, fiiri siduu naqanayo. okay, loogadii waa socotaa, soo ma jeedid. waa kaasaa loogadii way socotaa. okay, waa ujeedaa, soo mahan. marka waxaad sameyn kartaa hadda halkaan loogada joogtaa in haddana geeskan geysid, kadib haddana geeskan aa geysid, waxaasoo dhan waa sameyn kartaa. okay, waxaad sameyneysaa gadaal usoo celi keyframeka meesha uu ku dhamaado ken playheadka. okay, halkaas uu ku dhamaadaa, soo mahan. kadibna waxaa leedahay aad ayaa leedahay, yacni keyframe halkan ka bilaabo waayo. okay, keyframekan halkaas uu ka bilaabanaya, intuu ku dhamaanaya halkaas oo kale inuu ku dhamaada rabaa, soo mahan. kadib loogada halkaanay joogtaa, waan qaadayaa, koraan uwadayaa, waxaan geynayaa halkaas ayaan geynayaa. okay, keyframe ay ugu darsoom. haddana waxaan rabaa inaan halkan inta kasoo qaado aan geeskaas keenaan rabaa. okay, marka waxaan sameynayaa hadda meeshaan keyframe ma samey karo sababtoo ah delete diyaar ku ah, soo ma jeedid.
marka waxaan sameynayaa key frameka horaa ku dhex jiraa waa inaan ka baxaa key frameka marka hal frame ayaan waxa u baxayaa dhinaca midigta okay meeshaasaan taabanayaa kadib mujida aad ayaa soo bixaysa okay marka aad ayaa dhehaysaa key frameka halkan ayuu ka bilaabanayaa marka ku dhamaanayaa okay tusaalahan oo kale halkaas ayuu ku dhamaanayaa okay kadib marka actionka dhaca maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa loogadan soo jiid sidaan u soo jiid halkan keen markaas waa hagaag marka fiiri sida ay noqon doonto okay baleede sida uu noqonayo fiiri okay loogada waa ujeedaa bataasaha aragtaa okay hoose imaanaysaa kadibna kor ay aadaysaa soo ma jeedi somehow waxaa ujeedaa waxoogaa nadiif ma ahan okay sifa ma loo arkaa hoose imaata haddana waa kasaa waa hagaag marka haddaad rabtid waqtiga ay soconayso loogada waad dheeray kartaa okay tusaale ahaan kale hadda waxaan rabaa tan waqti dheer inay socotaan rabaa okay sidaasaa ujiidaysaa okay baleydhe waqti dheer ay socon doontaa fiiri halkaasay maray tartiib u socotaa soo ma jeedi okay waa hagaag haddaad rabtidna waad sii dheeray kartaa sidaasaad sawirka u dheeraysid waad sidaas usii dheeray kartaa okay muuqaalka laakiin intaanu ku egyahaaba waa hagaag waxaan samayn karnaa marka key framekan marka waxyaalo fara badan ayaa diyaar ku ah tusaalahan kale waxaad samayn kartaa rotate oo ah in yacni mataqaanaa aada wareejisid loogadan scale oo ah in cabirkeeda wax ka bedeshid oo kale waxaad samayn kartaa position oo ah meesha aad dhigaysid iyo sidoo kale opacityga oo ah in yacni si nadiif ah oo clear ah loo arko iyo inaan si fiican loo arkin waxaasoo dhan ayaa samayn kartaa marka tusaalahan kale hadda waxaan sameynaynaa rotate ku sameynaynaa okay marka horta loogada ii yareey okay sidaas u yareey kadibna waxaa sameynaysaa opacitygeeda wax yar yareey tusaalahaan oo kale 50% camal iigee waxaa sameynaysaa marka hal frame dhinacan waxaa u baxayaa dhinaca waxaa u baxayaa midigta kadibna halkana ka bilaaba marka okay halkaas ayuu ka bilaabanayaa key frameka kadibna soo jiid halkan keen playheadka kadib maxaa rabtaa marka actionka in la sameeyo aad rabtid maxaa waaye actionkaas waxaa waaye in loogadan la wareejiyo macnaha okay marka halkaana soo qabanaysaa tusaalahaan marka sidaas ayaa u wareejinaysaa ujeedaa okay saacadda sidaas camal aa u wareejinaysaa okay waa ujeedaa marka key frameka la sameeyey beleydha loogada soo majeed si u wareegsanayso okay waxaas waa samayn kartaa sidoo kale waxaad samayn kartaa in aad loogada cabirkeeda aa wax ka bedeshid okay tusaalahaan oo kale hadda fiiri halkan imaad okay kadibna waxaa dhahdaa add key frame dheh okay soo wad halkan keen okay waxaan rabaa key frameka halkaan ka bilaabana halkaan ku dhamaanaya maxaan rabaa marka inaan sameeyo waxaan rabaa inaan sameeyo loogadan soo jiid halkaas keen horta marka hore okay fiiri marka key frame baa lagu daray okay halkaasaa la keena soo maan waxaan rabaa marka loogadii in ay weynaataan rabaa okay waxaan leeyahay marka aad ayaan leeyahay okay key frame markaasuu ka bilaabanaya kadibna wax yar dhinaca waxaa u wadaa oo midigta kadibna scaleka cabirka ayaa weyneyneysaa majeedaa sidaasaa u weyneyneysaa okay sidaasaa u weyneyneysaa okay fiiri marka sida noqonayso okay halkaanay imaanaysaa kadibna maxay samaynaysaa way weynaanaysaa sidaasaa samayn kartaa waa hagaag positionkana wax kale ma ahan waa in loogada meesha ay joogto la qaado okay inta halkan laga qaado halkaas la geeyo ama geeskan la geeyo ama geeskan la geeyo waana aragna taas iyadana waxa ay tahay waa hagaag sidoo kale key frameka waxaa u isticmaali karnaa transition ahaan okay transitionka horaa usoo baranay halkaan oo ku jiriyaa waa labada muuqaal oo kale meesha iska gelayaan oo kale ama muuqaal iyo sawir waxyaalahaas camal meesha wax la dhigayo waaye okay muuqaalkan soo qaad halkan keen okay keep project settings dhe kadib muuqaalkan kale soo qaad halkan keen labadoo isku dheji okay waa hagaag wax yar iisoo weyney okay waxaan rabaa marka labada muuqaal meesha ay iska galaan oo kale in aan ku samaysto key frame okay maxaan sameynaa marka okay soo qaad playheadka halkan keen kadibna muuqaalkan double click ku dheh waxaan rabaa halkan inuu ka bilaawdo key frameka okay wax yar xataa daarti dhinacan u siki okay halkaasoo kala geyso key frameka halkan ka bilaabo aad ayaa leedahay halkaasoo ka bilaabanaya okay kadibna intuu ku dhamaanayo wax yar soo siki muuqaalka meeshuu muuqaal kale ka gelaya keen kadibna waxaad sameynaysaa halkaana keenta soo maan sidaana u jiidaysaa marka okay sidaas ayaa u jiidaysaa ilaa iyo waxaa geynaysaa dhammaadka camala geynaysaa sida uu naqanayo marka fiir beleydheh muuqaalka sidaas waa marka hore
soo ma jeedid transitionka markaad aragtid waqtigiisa waana dheeray kartaa waana gaabi kartaa soo ma jeedid sidaas u dheeray kartaa haddaad aragtid okay play dheh tusaale ahaan oo kale sida uu noqonayo fiiri okay madow buu noqday kana hore kusoo gelaa marka transitionka sidaas ayaad u isticmaali kartaa waa hagaag sidoo kale keyframe-kan waxaa u isticmaali karnaa wax la yiraahdo fade out oo ah muuqaalka markii uu dhammaanayo kale qaabka uu baxayo kale okay hadda tusaale ahaan muuqaalkan fiiri markuu dhammaanayo sidoo ku dhammaanayo hal mar uu dhammaado soo maan okay halkan keen playheadka kadibna double click ku dheh muuqaalka kadibna waxaa leedahay add dheh okay keyframe-ka halkaas oo ka bilaabanaya dhibic ayaa lagu sameeyey soo maan soo jiid playheadka halkan keen halkaas ayuu ku dhammaanayaa keyframe-ka maxaa dhacaya marka wixii dhici lahay maxaa waaye haddaa sameynaya waxaa leedahay kan opacity-ga hoos geey okay ilaa iyo waxaa geynaysaa derbiga 0 ayaa geynay muuqaalka siduu noqonaa marka fiiri play dheh okay markuu dhammaan doono halkan markuu imaado fiiri soo jeed muuqaalka sidaas qurux badan ayuu ku dhamaanayaa daartidna waa sii dheeray kartaa okay fiiri marka siduu noqonayo wax yar dheereeyay waa hagaag sidaas ayaa marka loo sameeyaa keyframe-ka casharkani intaas ayuu ku egyahay waxaa noo ballan ah casharka xiga mahadsanid